waxaa jiro Soomaali badan oo gaala ah oo ku jiro baraha bulshada hadafkooduna uu yahay gaalaysiinta ummadda Soomaaliyeed waxay leeyihiin janalo iyo beejaj kala duwan ay ku leeyihiin baraha bulshada saan la wada socono waxaa jiro dad la yiraahdo mustashriqiin oo gaalada ay u tababaraan barashada diinta islaamka si ay uga helaan dulduleelo waxaana Ilaahay mahadiis ah in ay waayeen dulduleeladii ay ka raadinayeen diinta islaamka Soomaalidani badankoodu waa mucaanidiin oo ma rabaan inay aqbalaan xaqa oo waxay la mid yihiin kuwii yiri in kaana hada huwa alhaq min indik faamdir alayna hijaratan min as-samaa haduu yahay xaq waxay yiraahdeen dhagax nooga soo daadi samada aw itina bi'adaabin aliim ama cadaab xanuun badan noola kaale qof xaq raadinaya ma dhaho haduu kan xaq yahay dhagax kor iga soo daadi ama cadaab ila kaale sida darteed maadaama ay yihiin dad mucaanidiin ah waxa wanaagsan inaan la doodin waxa lagu bixiyaa Soomaalidani juhdi waqti iyo maal intaba waxa ku soo gaarayo fiidiyoyadooda ayagoo ah mumawwal ama sponsored waa kuwa lacageeyay ayagoo ah ay goobtaada kugu imaanayaan taasna waxaad fahmaysaa abaabulka ee gaaladaasi soo abaabulayaan in Soomaalida ay ka soo saaraan dad badan oo gaala ah waxa wanaagsan in aan la doodin dadkaasi maadaama aysan xaqdoon ahayn waxaana la doodi karo qof markaasi cilmigiisa uu sareeyo oo kaliya oo culimada kamid ah